kulanti wacan oo wanaagsan daawaday halkan waa madasha wararka qodobada warkaad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya waxaa isi soo taraya faahfaahinada dheeraadka ah ee ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay laasgacmi waxaanu kuu soo gudbin doonaa xoogihii ugu dambeeyay khasaaraha la soo tibinayo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor waxa uu tibaaxay in la damacsanaa qorshe isaga iyo madax kale oo ku suganaa laasgacmi in lagu qaarijiyo hase ahaatee kooxda weerarkaas uu ka fashilmay cali yare cali gudoomiyihii hore ee amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir qaraxii ka dhacay halkaas weji kale ayuu u yeelay waxa uuna tibaaxay inuu ahaa qorshe la damacsanaa in lagu qaarijiyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor guud ahaan xoogihii ugu dambeeyey ee qaraxaasi ku gadaaman ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii rabbi uu ka raali noqdo iyo wararkii ugu dambeeyey ee xilligani ka imaanaya deegaanka laasgacmi oo qiyaastii 10 kilomitir u jira magaalada Bacadweyn ee gobolka Mudug waxaan kuu soo gudbin doonaa xoogihii ugu dambeeyey ee ka dahsoon qodobada kale ee aad ku daawan doontaan warkayaga waxaa qayb ka noqonaya bilada geesinimo tan ugu sareyso ayaa la siiyay Axmed Fiiqane iyo Maxamed Cumar oo markaasi ku dhiiraday in ay ka hortagaan weerarkii shabaab ay ku soo qaadeen laasgacmi madaxweynaha maamulka galmudug oo siiyay bilada geesinimo tan ugu sareysa maamulkaasi kadib markii gaari cabdi bila ah oo ay wateen labada wiil ee dhalinyarada ah ay ku horjareen gaarigii qaraxa uu saarnaa sidaasna markaas ay ku shahiideen daawadayaal weynu idiin soo gudbin doonaa guud ahaan qodobada warkayaga badi waxaynu ku falanqayn doonaa weerarkaas haddii rabbi uu ka raali noqdo iyo sida waxay u dhaceen xogo badan oo kaa dahsoon ayaan kula wadaagi doonaa ee daawada haddii aad markaas boggayaga ku cusub tahay aan ku xusuusiyey in barteena YouTube markaas aad subscribe saarto muuqaalkeenana like aad saarto ha hilmaamin saaxiibo fara badan sidii uu gaana qaybta hoose ee commentigana noogu reeb warahdaada kaaga aadan mahadsani daawaday ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar ismiidaamin ah oo kooxda shabaab markaas ay ku soo qaadeen deegaanka laasgacmi la yiraahdo oo qiyaastii 10 kilomitir u jira magaalada Bacadweyn ee gobolka Mudug weerarka waxa uu dhacay weerarka ayaa waxa la xaqiijiyay 6 subaxnimo iyo qadar 30 daqiiqo ah markaas in kooxda gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay deegaankaas ay ku soo weerareen xilliga weerarku dhacaya deegaanka waxa ku sugnaa xubno mas'uuliyiin ah oo uu qayb ka yahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor xubno xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasna qayb uu ka ahaa xildhibaan Dhabancad iyo senator cabdi qaybdiid ayaa la xusay mas'uuliyiinta halkaas ku sugnaa waxa kaloo halkaas ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug weerarka qaraxa ah inta uusan soo gaarin madaxda halkaas ku sugnaa waxaa ka hortagay askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo xilligaas ku sugnaa goobta waxayna askartu ku guuleysteen in markaas weerarkaas ay fashiliyaan kooxda waxa la xaqiijiyay in weerarkaas ay la damacsanaayeen xubno uu qayb ka yahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor xildhibaan Dhabancad iyo sidaas oo kale xubno kale oo mas'uuliyiin ah hase ahaatee waxa la xaqiijiyay in weerarkaas ay ka hortageen laba wiil oo dhalinyaro ah rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyay Axmed Fiiqane waxa uu ahaa markaas wiilkii isku dhigay gaariga qaraxa ah isla markaasna xilli uu watay gaari cabdi bila ah waxaana la sheegay in gaariga weerarka soo qaaday uu markaasi ahaa gaari buruuf ah sidaasna Axmed iyo wiil kale oo dhalinyaro ah oo markaasi la socday isla markaasna lagu magacaabo Maxamed Cumar ay kaga hortageen waxa ay qaateen doorka ah in gaariga qaraxa uu ka buuxay uu ahaa mid buruuf ah kadibna sidaas gaari cabdi bilaah oo ay wateen ay ugu horjareen sidaasna gaariga uu ka qarxay sawiro iyo muuqaalo la soo qaaday waxa ka muuqda rabbi naxariistii jannaha ka waraabi Axmed Fiiqane sawirka idin muuqdana waa Axmed saaka waxa uu ku shiiday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay kaas oo la doonayo in lagu weeraro madax uu qayb ka yahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor axmed fiiqane saaka waxa uu sameeyay fal qaf waliba aysan ku dhiiran karin kadib markii uu arkay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay kaas oo ay markaasi kooxda shabaab doonayeen in ay ku weeraan hoyga ay degan yihiin madax ku sugan deegaanka laasgacmi oo qiyaastii 10 kilomitir Bacadweyn u jira dhanka gobolka Mudug axmed waxa uu qaatay go'aanka ah inuu gaariga markaasi qarxaya uu ku horjaro gaari kale oo cabdibilaah isla markaasna darawal uu markaasi ka ahaa sida ka muuqatay sawirada iyo muuqaalada la soo qaaday
kadib naftiisa ayuu markaasi ku waayay si uu u badbaadiyey bulsho badan oo ay ku jireen madax markaasi uu qayb ka yahay madaxweynaha maamulka galmudug xildhibaano iyo xubno kale oo saraakiil ah. axmed waxa uu qaatay go'aan ay adag tahay in qof weliba ay ku dhiirato si markaas nafteeda ay u goyso islamarkaasna naf kale ay ku badbaadiso. hase axmed waxa uu noqday geesi go'aankaas qaatay. daqiiqado kadib marka uu qaraxa dhacay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor muuqaal ayuu soo duubay. waxa uu kaga hadlay xaaladda guud goobta uu qaraxa ka dhacay, waxa uuna iftiimiyey arrimo badan. madaxweynaha maamulka galmudug waxa uu baahiyey muuqaal laga duubay markaasi waxa uuna kaga hadlay weerarka ka dhacay laasgacmey oo uu xilliga weerarkuu dhacay ku sugnaa. muuqaalka qoorqoor oo soconaya in ka badan 1 daqiiqo waxa uu ku caddeeyey in weerarkaas uusan waxba ka soo gaarin isaga, markaasna ciidamo ay kaga hortageen, sidaasna uu la fashiliyey. waxa uu sheegay markaas in kooxdu ay doonaysay in markaasi arbushaad samayso, sidaas oo kalena isaga iyo mas-uuliyiin kale oo goobta ku sugnaa markaas lala damacsanaa. madaxweyne qoorqoor waxa uu tilmaamay in markaasi rafashadii ugu dambeysay ay kooxda ku jiraan, waxa uuna sheegay dagaalka xilligan ay ku jiraan xubno isaga uu qayb ka yahay oo mas-uuliyiin ah in uu sidaas oo kale u sii socon doono. geesta kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor bilada geesinimo tan ugu sarreysa ee maamulka galmudug ayuu siiyey axmed fiiqane iyo maxamed cumar oo maanta labaduba ku shahiiday weerarkaas. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor maanta waxa uu heerka ugu sarreeya ee bilada geesinimo guddoonsiiyey axmed fiiqane iyo sheekh maxamuud iyo sidaas oo kale maxamed cumar xirsi. axmed fiiqane iyo maxamed ayaa waxay maanta naftooda u hureen badbaadinta madaxda galmudug oo uu qayb ka ahaayeen xildhibaano, madaxweynaha maamulka galmudug, saraakiil iyo xubno labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ka socotay. galmudug ayaa sidoo kale waxay si buuxda u kafaalo qaaday qoysaska ubadka naftood horayaashii maanta halkaas ku baxay. falka geesinimada leh ee ay markaasi qaateen labadan wiil ee dhalinyarada ah, rabbi ha u naxariiste, waxa ay go'aan ku gaareen in gaariga qaraxa waday markaas ay ka hortagaan si ay u badbaadiyaan dhowr naf oo kale, islamarkaasna kooxdu ay damacsaneed in markaas ay qaarijiso. axmed fiiqane ayaa waxa uu markii uu arkay gaariga qaraxa ku soo socda dhanka aagga ay degan yihiin madaxda, waxa uu markaas hordhigay gaari kale oo cabdibila ah. gaariga waxaa la sheegay qaraxa uu saarnaa inuu ahaa gaari xabaddu aan karin, sidaasna wiilkan dhalinyarada ah uu ugu horay naftiisa inuu ku horjaro gaari kale oo markaasi cabdibila ah, isla markaasna uu waday. sawirada la soo qaaday waxay muujinayaan in gebi ahaanba uu burburay gaarigii cabdibila ahaa ee markaas axmed uu saarnaa iyo wiilka kale ee dhalinyarada ah. labadaas wiil waxa ay naftooda ku waayeen badbaadinta dhowr naf kale oo markaasi xubno mas-uuliyiin ah, ammaankooduna markaas iyagu ay sugayeen. labada wiil ee la siiyey bilada waxa ay kala yihiin axmed fiiqane iyo maxamed cumar. labaduba maanta ayay markaasi deegaanka lagu magacaabo laasgacmey oo qiyaastii 10 kilomitir u jira markaasi halka lagu magacaabo bacaadweyn oo mudug dhacda ay markaas labaduba si toosa ugu shahiideen, waxayna ka hortageen weerar kooxdu ay doonaysay in khasaaro badan ay ku geystaan. daawada waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddaba tiida booqashada idinku wareysay boggeena waxaa xusuusiyo in markaasi barteena youtube subscribe aad saarto, muuqaalka laag aad saarto si mar weliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka halkan aan kugu soo gudbina ee mahadsanid daawade.